بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغيرت هذه السلام يا إذا لهانتين با meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada asxaabta soo dhawaada war ninkii faarax macalin ahaay anigu horta waxaan ka aaminsanaan jiray inuu horta dowladda Soomaaliya uu necab yahay iyo jiritaankeedaba inuu diidan yahay oo ka soo horjeeda ayaa horta u maleyn jiray xaqiiqatan baa idin sheegi maayo waana dhaliili jiray markaa arkaabo waxaan arkay caawa waan la yaaba hadallo oo ku hadlayo xaqiiqatan oo markaa u fiiriso hadalladaasi wax weyn ayaa kaaga baxayo wallahi billahi tallahi waxa weeye qofka bini aadanka sembri mucaarad uma ahaado markuu wax yani toosin ah oo aad ku aragto asoo wax toosinayo ama yani si Soomaalima qofka markuu hadlayo de waa la siyaa libantiisa lama xaqiro caawa aniga waxa weeye ma haysta imaamada horta ninka la yiraahdo Faarax Macalin oo laakiin waa ku dhagnaan jiray waxaan dhigi jiray Kenyatta xumo uraayo ayuu hoos fadhiyaayo dowladnimada Soomaaliya uu diidan yahay dhigi jiray awal laakiin warkiisa markaa arkay waa la yaab warkaas waa idin soo gudbi doonaa qaybta dambe ayaad ku daawan doontaan ee barnaamijkan waxa uu sheegay Faarax Macalin in dad kooxda xamar fadhiso ee siyaasadda Soomaaliya majraa u haayo inay dalkii xaraasheen bad cir dhul intaba khayraadkii dalka uu lahay inuu yani xaraasheen ayuu sheegay waxa kaloo sheegay carabtan hadda islaamnimada dadka noogu dhow ay yihiin oo yani maanta islaamnimo markii la yiraahdo ayagaasaa noogu dhow kuwa maanta dibindaabyada ku haya dalka Soomaaliya waa ayagoo yiri wuxuu soo qaata taariikh abaalkay Soomaaliya u gashay 60kii markay xorriyadda qaato Soomaaliya wuxuu yiri Faarax Macalin nimanka la yiraahdo imaaraadka ayagoo gaajo tacbaan leh oo yani naftu hayso Soomaaliya shaqaalihii xilliga la qoray mushaaraad laga jarjaray lacag laga jaray mushaaraadkooda ayaa loo geyn jiray waana sax waa xaqiiq Sacuudigana wuxuu yiri ayagana waxaa la siin jiray yiri sakawaadka xoolaha sakada ah ee Soomaalida ayaa intii iska aruuriyaan ayaa Sacuudiga loo geyn jiray maantana Soomaaliya dadku u necab yihiin maantana Soomaaliya u necab yihiin xaqiiqatan marka Faarax Macalin runtii hadallada uu sheegayo waxa isleedahay alla ilaahay ninka caawa hadalkiisa waaba quman yahay isleedahay waana afeefaraya wuxuuna leeyahay ama qaado ama ha qaadan adeeg ku taala uu leeyahay marka muuqaalkii ayaan idin soo deynayaa barta aan wada daawano muuqaalkaas ka bacdina aragtidaada adiga waxaad ka aaminsan tahay Faarax Macalin iyo hadalkan hadda uu sheegayo Faarax Macalin sida adiga u aragto qaybta commentiga nagula wadaag adigoo mahadsan oo wax aflagaada midna aysan ka soo yeereen anigu hadalkaani waa qiimeeyay markaan qiimeeyeen waxaan u qaatay aniga oo yani ila noqday inuu Faarax Macalin warka uu sheegayo ay wax ka jiraan oo sax yihiin maadaama asaga oo nin siyaasi yahay nin siyaasiya u dhundaleeyo siyaasadda xaaladda Soomaaliya aad uga warqabo marka waxaan isdhihi karaa anigu kulli taba warkaan Faarax Macalin uu sheegayo waxba ka jiro sababtoo ah Soomaaliya ciidan u heesaa male waxaan mas'uuliyiinta maanta sheeganayo xaqiiqatan marka runta aan ka hadalno ciidan guud haysa male Soomaaliya ciidan u heesaa male nin kasta oo meesha xilka qabta Soomaaliya maanta dantiisa raasanaya oo kaliya dantiisa oo kaliya ayuu raadinaya wallahi dan Soomaaliyeed raadinaya marka Faarax Macalin warkiisii walaa kanaay bal aan ku wada yaranasano Faarax Macalin warkiisa daawasho wacan xamar nimanka joogo way suuq geeyeen Soomaaliya bad khayraadka wadankay rabaan wadanka khayraadkiisa ku jiray rabaan shidaalkiisa rabaan gaaskiisa rabaan dahabkay rabaan platinum kay rabaan wax aanan ku jirin Soomaaliya ma jirto badeeda iyo barigaadaba kalluunka Soomaaliya la meel u adduunka yaala ma laha waa reer galbeed carabta kalluun waxay ka dagaalamaysaa shidaalkaas ay leedahay hadii la soo saaro kiina hoos u dhicin maxaa dhaweydin u dhowdahay soo muslimiin ma soo annaga soo dadkii aan qaraabsan jirnay ma zakada laga qaado Soomaaliya ayaa Xijaaz la geen jiray zakada laga qaado Soomaaliya
lacagta laga aruuriyay shaqaalaha Soomaaliya xurriyadda markay qaatay ka dambe ayaa imaaraadka annaxyaan loo geen jiray asagoo macluul u dhiman hayaan iyo rafaad iyo gaajo iyo badweynimo iyo wax kasta oo dhanba maantana waxay diyaar u yihiin inay Soomaali tirtiraan dantooda ka fiirsanayaan they don't care about anything else dantooda ka fiirsanayaan tashan weydo oo talada lagu taliyay haddana aad noqoto aaladii lagu si xisaabtamay oo hoos ahaan isku layso oo isku dirirto oo dhibaato samayso oo wax yar oo meeshan aad ku xisaabtan dadkana meeshan ay ku xisaabtamayaan yaa ku maciine war yaa ku maciine. Now what I want you people to do إن الله لا يغير حتى أن يغيروا ما بأنفسهم سمع وسامين إلهي أمد ما بدلوا إلا ما أمد يجلس بدش سامين فاهمين ورسامين فاهمين هرتي يدوا القاتل محادة فارح معلم بعد يرتنا ترك على أنا هذا الأطر هذين waxaan idin sheegi Soomaaliya waa iib xaraash ma garanaysaan war ma maqashaan mase show waan iska joojin lahaa cashaysaan oo iska dhaanta aan tumanno iska kala tagne dirgax andhaha anaga farxsan iska tagna miya ani dhegeysta Somalia is for sale magaran xamar nimanka joogo way suuq geeyeen Soomaaliya khayraadkii waa la suuq geeyay xurriyadeedii waa la suuq geeyay wax kasta waa la suuq geeyay faarax wuu xun yahay muxuu saa ugu hadli wuxuu ka soo horjeedaa hebel madaxweyne hebel baad tirahdeen waxaad ka heshay waxba iga siinin wax alla waxaad ka heshay adiga waxba iga siinin لكن ما دام أنا هني سياسي اللهم إني بلغت وإني شيء حق هذا نينا سكة لو قاطع ما يلقى من كفيرية والرهبل وكن وكوس أصادها إذنك أهلا وسهلا على كيفكم مي فهمتين ورمي فهمتين مسلم نمان محيهد مسلمين ما نقول دقيني مؤمن من قاسه قال محست إلى شو هذا ما كان ستأيا داما سوما ورساساما هذا كينيا مركز ما تمانت نيروبي يحمر اسكسي ما أقول نوران كرتا حمر نفتها وبقي سوما نيروبي يا حكومة population كنيروبي بقول كيف سكاشين الدور سومالي معها وضد كله أيضا أصلا هنتظر لا يصوب بابا سومالي لو ولا صوردا أو قريه لو قد استا سوما waayahay kulito warka faarax macali waa ka waan u jeedaan wuxuu ku hadlayo iyo sidoo u hadlayo waad arkaysaa marka aragtidaada qaybta commentiga aragtidaada halkaas nagu wadaag dhammaan salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh